ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين qeybtii labaad adiladii tusinaysa ilaahay waxdaaniyadiisa oo kownigan ahayd baan kaga hadlaynaa daliilka koobaad waxa weeyaan waa kownkan ou alla abuuray oo samaawaadkiisa leh oo ardadi leh oo waxa u dhexeeyo saxaabki leh oo buur leh oo bad leh oo beri leh waxaanoo dhan kown baa la isku yidhaahdaa annaga inta noo muuqato un baan ka hadlaynaa carshi baa jiro qalam baa jiro khalaa'iq badan xataa samaawaadka ilaahay wuxuu ihi 7 samaawaat baa jirto mid un baan annaga hadda ayaa noo muuqato kownkan waa kitaab maftuuxa ah qofka hadduu si dhaba u akriyo waxaa u soo baxayso ilaahay oo waaxid ah inuu jiraa u soo baxayso walidalika ilahi wuxuu ihi ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrdi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab samaawaadkan abuuritaankooda iyo ardada abuuritaankooda waxa weeyaan iyo wixii u dhexeeyana waa soo gelayaan waxay aayaad oo u tahay oo ku filan inuu waxdaaniyad ilaahay ku garto liuli lalbaab kuwa caqliga leh way ku filan tahay baa la yihi u fiirso liannahu sidii aayadii hore aan soo sheegnay darsigii hore sanuriihim aayaatina fi اlaafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu اlxaq ilahi wuxuu ihi waxaan dadka tusinaynaa waxa ayaga hareeradooda ah yaan ka tusinaynaa aayaad iyo calaamooyin iyo xujaj iyo baraahiin oo qofkii ku garto ilaahayga waaxidka oo kownkan abuuray laakiin ishkaaliyada waxa weeyaan nina intuu koonkaa akriyo ilaahay waaxdaaniyadiisa ku gaara nina cinaad buu ka kordhisaa qul induruu maada fi الsamaawaati wاlأrdi wma tugni اlآaayaat wالnuduru can qowmi laa yuؤminuun u fiirso waxaa la yihi ilaahay aayaadkaas samaawaadkii ardada u dhigay iyo waxyaalaha kale oo qofkii u digayo waxba ka deeqi mayso dadka ilaahay aan rumaysnayn dadka ahlu cinaadka ah waxba ka faa'iideyso mayso marka kownkan waa isla wada shaqaynaya laa yatakhallaf shay can waqtihi walaa yakhruju can masirihi walaa yataqadam walaa yataأkhar fiiri kownkan wuxuu ku wada shaqaynaya sidii ilaahay uu sheegay lashamsu yanbagii laha an tudrika alqamara wala leylu saabiqu الnahaar wa kulun fii falakin yasbaxuun waxa weeyaan mid inta ka daba taga ku dhacaya ma jiro midka hormaraya waqtigiisii male adiga weligaa ma aragtay inta aan kownku noolnahay maanta qoraxdii waa baaqatay iyadoo la leeyahay dayixii waa baaqday cirkii baa qeyb ka soo dhacday ma arkaysa liannahu ilaahayga sameeyaa wuxuu yahay sunca allahi aladii atqana kula shay waa allihii wax kasta sugay weeyaan marka ilaahay asagoo ka hadlaya wuxuu ihi aladii khalaqa 7 samaawaati طibaaqa ma taraa fi khalqi الraxmani min tafaawut farjic اlbasra hal taraa min futuur ثuma اrjic اlbasra karatayni yanqalib ilayka اlbasaru khaasiئa wahuwa xasiir aayaadkaa suuraة tabaarak oo cid kasta ay akrinaysa macno weynay xibaarsan yihin aladii khalaqa 7 samaawaati طibaaqa ilaahay 7 samaawaad ou abuuray oo isdul saaran midba mid bay ka koraysaa
maa taraa fii khalqi الraxmaani min tafaawut ilaahay wuxuu abuuray kala kalaay ma gelayso wax kala hooseeyo saa u kala qaab daran ma jirto maa taraa fii khalqi الraxmaani min tafaawut ثuma اrjic اlbasra hal taraa min futuur ilaahay kownkiisa oo samaawaadka ila balfiiri meel walo ka dulduleesho ay wax ka soo daadanayaan arki mayse ثuma اrjic اlbasra karatayni ku celceli yanqalib ilayka اlbasaru khaasian wahuwa xasiir adig un baa daalaysa haddaad tiraahda ilaahay khalqiga ou abuuray ceeb un u hel haddaad tiraahda indhahun baa ku soo daalaya adoon waxbana arkin alaysa hada xaqiiqa u fiirsa bani aadamka wuxuu dhiso ninka dhisa wuxuu ku leeyahay gurigan wuxuu dhisnaan karaa ugu badnaan intaasoo sano wuu iska dhammaanaya laakiin kownkan samaawaatuhu wa arduhu waxaa ka waaweyn waxa weeyaan maalinkii ilaahay u abuuray malaayiin sanaa soo martay sideeda bay u taagan yihin taas marka waxaad inaad garataa ilaahigii badiicu samaawaati wاlard ilaahigii sidaan wax u abuuray cid uu kaga daydeen aan jirin allahaas waa inaad rumaysaa sunca allahi aladii atqana kula shay ilaahigii waa allihii sugay shay kasta abuurintoodii yuu sugay sugita waa maxay wax khalal aan ku imaanaynaa la yihahda marka kownkan waa kitaab maftuux ah ninkii raba inuu ilaahay u ogaado inuu jiro inuu si caqligiisa oo kownkan ku fiiriyo waxa weeyaan ta'amal fii nabaati اlardi fandur ilaa aathaari maa sanaca almaliku ilaahay wuxuu abuuray lee fiiri sidii ay roobka markuu da-a cawska soo baxay cawska hal shay sooma baxay tobanaan malaayiin noocaa soo baxayso mid kastaba waxaa weeyaan faa'iida gooni uu khalqiga u leeyahay intaas macnaheedii maxay tahay yani kownkan bisijaamka u shaqaynayo marka kownkii ninkii ogaado waxa weeyaan fitradiisa haddayna fasaadin waa rumaynaya waxaa la yidhaahdaa qof kasta markuu dhasho islaamkuu ku dhalanaya liannahu kulu shay wa fii kuli shayin lahu aayat tadulu calى anahu waaxid yani koonkii o dhan baa ku dhahay war ilaah waaxid ahaa jira asaa ku dhahay yuusan kula hadlin laakiin bilisaani اlxaal buu kaaga sheegaya marka walidaalika nebigu wuxuu yihi kulu mawluudi yuuladu calى اlislaam aw calى اlfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajsaanihi qof kasta islaamka iyo fitrada toosanaa lagu dhalaa waxaa keenaya qofka inuu ka baxo bii-ada uu ku dhashay hooyadii aabbaha uga horeeyaan qofka haddii laba aabbo oo hunduus hooyo ay iska dhalaan wuxuu baaluqayaa isagoo lo caabudaya sababtana waxaa weye aabbihii hooyadii baa iyaa fasaadiyey marka taas waa wax fitradii ka baxsan weeyaan fitrat allahi alatii fatara الnaasa calayha laa tabdila likhalqi اllaahi dalika diin اlqayim fitrada waa diinta ilaahay toosan weeyaan marka daliil aan ka dhigno oo waaxid ah sida kownkan wuxuuna tusinayo oo waxdaaniyat اllahi tabaaraka wa tacaala midda labaad daliilka labaad daliil lagu magacaabo atamanuc waa isdiiddo waayo waxaan iskeeni karin haddaad aayaddan fahmisid ilaahay baan rumaysanahay inuu ilaah kala jirana waan aaminsanahay kownkaana waan arkaa wax iskeeni kara ma ah low kaana fiihimaa aalihat ila اllahu lafasadataa bow ilaahi fasubxaana اllahi rabi اlcarshi camaa yasifuun haddii kownkan allaha waaxidka mooye hadduu ilaah kala jiri lahay maba sii jiri kari lahaynba waa fasaadi lahay u fiirso macno weyn inay aayaddaas ximbaarsan tahay haddii kownkan allaha waaxidka wax aan ahayn hadduu jiri lahay ilaah kale waa fasaadi lahayd liannahu waxaa weeye hadda waxaan aragnaa kownkii inuu si wada jaan qaadayo ou midaysan yahay wax isku kharibmaa isku dhacaa aysan jirin wax kasta ay habaysan yihin la shamsu yanbagii laha an tudrika alqamara wala leylu saabiqu nahaari kullu fii falak yasbaxuun wax kasta waxaa weya nidaamkiisuu ku shaqaynaya taas waxaa la yihahdaa insijaam iyo wi'aam aa ka dhaxeeya ayib hadda marka waxaan aragnaa insijaamkan kownka ka dhexeey waxay daliil u tahay
inuu alla waaxid keli ou leeyahay allahaas waaxidka liannahu hadduu ilaah kala jiri lahay saddex midkood unbaa imaan lahayd saddexdii midkood waa maxay in labadii ilaah oo kownka wada abuurtay inay isku dhacaan hadday isku dhacaan laba midkood unbaa imaan lahayd inay ismari waayaan oo ninba wixiisa u qaato haddii ninba kownkan waxaa weeya waa kutla oo wada xariiro waa haddii ninba wixiisa u qaato wuu wada kharimi lahay hadda samaawaadkii haddii la qaado ardada ma jiri kartaa waxaan waa isku wada xariin hal falag ay ku wada jiraan hal najmi hadduu masaarkiisa ka baxa kuwa kale way wada kharimaya marka haddii labadii ilaah isku dhacaan oo midba wixiisa u qaato koonkii waa kharibmi lahay marka koonka hadduu jiro waxay u daliil tahay laba ilaah isla jira inaysan jirin ilaahay wuxuu yihi ma اtakhada allahu min waladi wma kana macahu min ilaahi ida ladahaba kulu ilaahi bima khalaqa walacalىa bacduhum calىa bacdi subxaana اllahi cama yasifuun ilaahay wuxuu yihi walad ma yeeshanin ilaah kaloo la jiro wax la maamulana ma jiro hadday jiri lahayd ida ladahaba kulu ilaahi bima khalaq hadday dhici lahayd ilaah kale inuu jiro ilaah kasta wuxuu abuurta u qaada lahay taas hadday ay dhacdane kownka waa lagu kala tegi lahay waa hal daliil hal ixtimaal waay ixtimaalka labaad markay isku dhacaan mid in laga adkaado midna uu adkaado khalaas dhibka ma jiro midkii adkaada ilaahay midkii laga adkaadani waxaa ilaaha loo yahay oo anaguna la mid noqday haddii lakala adkaado weeyaan ayib ixtimaalka saddexaad inay heshiiyaan oo yidhaahdaan inaan waa ismari wayne aan wax isla wada wadano taas waxaa la yihahda waa mustaxiil laba qofood oon weligeed isku dhacaynin yacni malaayiin sano waa waarid ma ah ilka iyo cara baa isla shaqay waay taa marka waxaa weeyaan xataa laakiin aan ka soo qaadno inay ku heshiiyeen aan wax isla wadano aan is ilaalino ilaahnimadii labadooda waa dhaafaysaa liannahu ilaahan xuduud buu leeyahay kan kale uusan u gudbi karin marka fiiri awood kaamil ee ma laha allahan kaleu iska ilaalina kaasna kanuu ilaalina labadooda ilaahnimada saasay ku weylahayen walidaalika aydan waxay ku leedahay low kaana fiihimaa aalihat ila allahu lafasadata hadday jiri lahayd allaha waaxidka mooye ilaah kale hadduu jiri lahay wax kown oo jiri kari lahay ma jirto laakiin maadaama kownkii uu jiro sida ugu wanaagsanna uu u socdo waxay daliil u tahay inuu hal keligiis ilaahay uu leeyahay jala jalaaluh walidaalika ilaahay wuxuu noogu soo qaaday daraba allahu mahala rajula fiihi shurakaau mutashaakisuun wa rajula salama lirajul hal yastawiyaan fiiri hal addoonay laba nin wada leeyihiin ninkaa addoonkaas ma shaqayn karaa ninkan wuxuu leeyahy maanta halkaas adkii kale wuxuu leeyahy maya ha aadina joog mithaal waxay u tahay laba qofood waxay wada leeyihiin oo isku awood wax ma wada wadi karaan waa inuu maalin in qof meesha uu ka taga ayib taa markaan ka nimaado towxiid daliilkii labaad daliilu tamaanuca la yihahda daliilka saddexaad waxaa kale kasoo tagaa lagu leeyahay adiga insaan isku soo laabo adigan basharka ah bal isku laabo intee maraaxilaa soo martay shalay waxaa lagu arkay caloolsha adoo candhuuf ah ku jirtay xinjiraad noqotay hilib baad noqotay haddana lafaa lagu abuuray nafaa laguga abuuray waa dhalatay adigoo aan quraanshana iska celi karin waad socotay waad garguuratay waad dhaqaaqday ilaa aada ninka noqoto maraaxilaa soo martay ayib adiga isku fiiri indhaha adimaa isu samaysay dhagaha si u samaysan yihiin jirkaada hoose u shaqaynaya waa masnac warshad warshad xataa lama dhigi karo wax oo caqli geli karin waayo laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim yacni waxa ugu toosnaan badana lagu abuuray walidaalika adiga dib isku akri ilahi wuxuu uri wa fii anfusikum afalaa tubsiruun war naftiina isku laabta adiga is akri neefta hadday kaa istaagta maanta wax ma isu soo celi kartaa
maya cidaa kuu samaysay wadnaa laguu sameeyey beeraa laguu sameeyey keliyaa laguu sameeyey calool baa laguu sameeyey mindhiciran baa socoto wixii dhan warshadii saa wada shaqaynaysa hal minut hadduu khalal ku yimaado waa tegaysa marka waxaa lagu leeyahay warniyahu adiga maa is abuurtay mase cid kalaa ku abuurtay bal adi isweydii jawaabtii waxaanu ognahay adiga isma aadan abuurin liannahu maraaxisha aada soo martay adaaba is ogba meesha aad ka soo bilaabatay waxaad og tahay marxalo waxaad soo martay naftaada xataa aadan ku filneen oo ilaahay hooyadaada kuu sakhiray ee ku hayso intaasaa lagu soo marsiiyey shalay ma jirin maanta waa lagu dhalay biri waa dhimanaysaa maalinka dambe waa lagu soo bixinayaa maraaxishaas oo dhan cid kaala tashatay maa jirto maalinkii lagu abuuray cid ma kaala tashatay adoon dan cid kaala tashatay aan lehna lagu abuuray adoo cid kaala tashatay aan lehna lagu dilaya adoo cid kaala tashatay aan jirina lagu soo bixinaya waana lagula xisaabtamaya marka waxaas waxaa weyaan dib u akri kayfa takfuruuna biاllaahi wakuntum amwaata faaxyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun yani ilaahay baa ku dhahay seed ugu kufrinay intaasaaba lagu soo marsiiyey haddii adiga aada ilaah aadan aaminsaneyn ma iska joojisa markaad 20 jir aada noqotid oo caqligaada iyo awooddaada ay dhammaystiran tahay maa dhahdid aniga intaa ma isdhaafinayo markaa duqnimadii ma ogoli maa dhahdid way kugu socotaa leesh ma isweydiisa marka haye ma adaa is abuurtay jawaabti maya haye ma iska timid yani ilahi wuxuu uri am khuliquu min gayri shayin am hum اlkhaaliquun macnaha dadkii cadam maa laga abuuray ayaga maa iska yimid mase ayagaa is abuuray jawaabta horta adiga maa is abuurtay meesha waa ka baxday liannahu nin kasta waxaan aragnaa meeshuu kasoo bilowday in la abuuray annagaaba aragnabo ayib marka ma iska yimid marka bilaahi calayka ninka insaankan sidaan u tarkiibsan oo sidaan u kala habaysan miya yani ma iska abuurmay keligiis ma iska abuurmay am khuliquu min gayri shayin yani wax abuuray ma jiraan miya qofkii waa ka xishoonaya inuu yihahdo anaa iska imid marka waxaa tira maya waa lay abuuray dadaa marka waxay leeyihin ilaah afka kuma dhufa karnee dabiicadaa na abuurtay aan dhahna war dabiicadaad sheegay maxay tahay haddii aad ilaahay dabiica ku magacawdood magacaas u bixisay magacaa lagu saxaya haddaad dabiicada wax kale u jeedido hawadan iyo qoraxdan iyo dabeyshaani waxaan isku dhacay ula jeedidne maya taa wax ma abuurto waxna ma noolayso marka waxaa laasim kugu noqonaya haddaad adiga is abuurin keliga aadan iska abuurin inaad ictiraafto in lagu abuuray yaa ku abuuray allahu jala jalaaluh alwaaxid اlqahaar rabu الsamaawaati wاlard allahaasaa ku abuuray ayib taas markaan nimaado aan insaanku u nimaado mawaaqif الnaas adiladaas hadda qaab yaraan ka taabanay waxa weeyaan ninkii marka loo sheego adiladaas 43 aan sheegnay boqolaal adilo markii loo sheego xaalada uu leeyahay ninkii inuu rumeeyo u yihah wallahi waxaad i xasuusisay dibaan isu akhriyey waxaan ogaaday makhluuq inaan ahay marbuub oo rabbi loo yahay ilaahayna aan leeyahay niyahu ilaahaas itus ilaahaas ibar itusta macnaha ibar weeyaan ilaahaas ibar ilaahay baa lagu barayaa markaas sifaadka uu leeyahay maxaan ku yidhaha wuxuu kaa rabo ariiqada loo maro meesha uu kaa soo bilaabay wuxuu kaa rabo inuu kugu dhameeyo ninkaa waa nin mu'min ah waa rumeeye midda labaad inuu ninkii jawaabka bixi waayo adiladii markii loo sheegay oo lala waajihay oo la yidhi haye maxaa markay go-aan kula tahay nin caqligiisa ixtiraamaya waayo wixiina waa rumeeyey oo waa inay sax yihiin u arkay wuxuu ugu jawaabana male iimaankiina qaadan maayo markaasuu cinaad wuxuu ku leeyahay maya ma rumaysna aniga
hadda fiiri nabiy llaahi ibraahim ninkii la dooday aayaad kowniya la yihi alam tara ilى اladii xaaja ibraahima fii rabbihi an aataahu اllahu اlmulk id qaala ibraahimu rabiy aladii yuxyi wayumiit wuxuu ihi aniga rabbiga aan caabudo allaha dadka dilo oo soo nooleeyo waay ninkii boqorka ahay oo lagu magacaabay dadka yihahda numruud baa la yihahdaa ou ihi anigaba dadka waa dilaa waana soo nooleeyaa labadaa nin oo dilka iigu xukuma kanna waan badbaadiyey iska baxaan iri waa nooley kanna waan dilaya waan dilay buu ihi anigaba waa kaasa ibraahim markuu arkay ninkaa mustawihiisa si u hooseeyaan yaa wuxuu ihi faina allaha yaأtii bالshamsi min almashriqi faأti biha min almagribi tan waaba kula fahmee bal haddaad tahay ilaahay qoraxda wuxuu cadceedda ka soo bixiyaa bari adiga maqribka ka soo bixi meesha u dhacdo fabuhita ladii kafar wuxuu ku hadlou garan waayo wamaca dalika ibraahimna ma rumaynin fiiri aayaad oo cad baa la tusiyey siduu ula dhaqmo waa garan waayo raganimo waxay ahayd inuu yihahdo waa iga heshay waana rumayna inuu yihahdo ninkii gaalka ahay waxa weeyaan waa aamusay buhti waxa la yihahda qofkii markuu yani wuxuu ku hadla garan waayo waa la aamusiyey haddana ma qaadanin qoladaas waa qeyb ahlulcinaada la yihahda qeyb saddexaadaa jirto aswa ah xaqi baad u sheegtay wuu arkay inay xaq tahay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum markuu arkay bedela maa inuu wixii qaato uu kula rumeeyo inuu sameeyo iska dhaafe dagaal buuba kuga soo qaadaya dagaal buu kuga soo qaadaya waa aqwaamta badigeedu waayo markii xaqaa'iqdii la dul dhigay waxay diidayaan wixii way rumaysan waayeen qoladii nebi moxamed markii qur'aankii ay ugegsan waayeen laa tasmacuu lihada اlqur'aani walgow fiih baa yihahdeen ha lagu ag buuqa laakiin ha dhegaysanina liannahu haddaad dhegaysataan xujooyin buu idinku oogaya mana ka jawaabi kartaan dadkii oo dhanna way fitnoobayaan ay aaminsan yihiin marka qoladaanaba kasii daranbo waa sina loo badan yahay dadkii haddaad xaq u sheegtid aqala taqdiir xaq hadday qaadan karin ya xaq inuu yahay waa ujeedaa laakiin ma qaadanayno na kala wad waxa weeyaan adiga muhiimadaada waa kaa dhammaatay liannahu ilaahay wuxuu ihi afa anta tukrihu nnaasa xataa yakunuu mu'miniin dadka ma islaamkaad ku qasbaysiin say mu'min ku noqdaan jawaabtii waa la marka ani xil igama saarno inaad adiga diidid dhib iguma hayso laakiin waxa aan kuu sheegaa dhegayso qofkii marka wixii dhegaysto u diido inuu kaa taga dhib ma laha ninaa wuxuu ku leeyahay waxaana aad ii sheegtay wuu ka qaraaraya wuu dhirfay waxa weeyaan maba ninkaan islamaba joogi karnabo ambiyadii ilaahay waxa weeyaan in la dilo yay gaarsiisay wakaayin min nabiyin qutila macahu ribiyuuna qiraa'a saas qabto wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuun qutila waa ambiye la dilaa jirto maxaa wax noogu sheegaysiin xaqa aada noogu sheegaysiin saas yaa lagula dagaalamay nabiy llaahi luut waxaa loo eryey inahum unaasu yatataharuun waxay yihiin waxaan kuula dagaalamaynaan kuu dilaynaa waxa weeyaan annaga waxaan ku dhex jirnaa wasakdi liwaad iyo macsidi adiga nin daahir aad tahay inaad aad nala dhex joogtid adigoo naga fiicanaanba diidanahay marka ambiyadan waa loo diidan yahay inay dadkan xaq haddaad aada u sheegtid way diidayaan inay diidaanna kuma ekee way kula dagaalamayaan waxaa taariikhda dib u dhaca u fiiri ina aladiina ya'muruuna الnaasa biاlqisط wayaqtuluuna الnabiyiina aayaddii waxay ahayd wayaqtuluuna الnabiyiina oo shahaadkaan ujeeda ambiyadii oo dadka xaqa amraysa ina aladiina yakfuruuna biaayaati اllahi wayaqtuluuna الnabiyiina bigayri xaqi wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna annaasa aayaadkaas waxa weeyaan dadka gaaloobay ambiyaday dilayaan ee dadka wanaagga faraysay
marka waa dadka ugu shar badan maanta hadda waxaa weeyaan muslimiinta waxaa lagu haystaa maxaad u jirtiin ood islaamka u haysataan islaam in meel kale la gaarsiiya iska dhaafa guryihiisaa lagula dagaalamaya tan ugu khatarsan taas weeyaan oo waxay ku leeyihin reer galbeedkii iyo gaaladii kale war annaga saan u noolnahay nala imaw ayagaa dacwado nagu wado tiina meel iska dhiga islaamkiina irhaabiyiin aad noqoteen annagana la qaata waxa la ysku haysta maanta taas weeyaan marka dadkaas fi nihaaya laba mid un bay ku dambayn doonaan dadka xaqa saas u diido in ilaahay dadka mu'miniinta gacan siiyo ou ka kormariyo gaalada wabitaali ay dagaalamaan gaaladii gacanta lagu dhigo islaamkiina uu saro maro waa hal xaalo weeyaan waladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu cala اddiin diintuu ka saraynay ilaahay wuxuu uri wakaana xaqa calayna nasru اlmu'miniin haddaan diinta dhab u qaadano fi nihaaya waxaan gaalada qumbula dariya nugleer halahaadaana waxaan oo dhan haddaan ilaahay amarkiisa aan fulino oo sida uu naga rabay aan ka soo baxno gaaladii waa ka sara maraynaa waa wacdi min allahi tacaala walayansurana allahu man yansuruh waa qaacida ilaahiya in yansurkum اllahu falaa gaaliba lakum ilaahay hadduu idiin gargaaro wax idinka qaalib noqon kara ma jiraan waa halkaas xaalo weeyaan xaalada labaad in gaalada ilaahay cadaab ku sallido ayagoon mu'miniinta aanba lala dagaalamin yaa kawaarith kowniya ambiyadii dadkii hore oo ambiyada la dagaalami jiray qaar waxa weeyaan waa badaa lagu furay sida nebi nuux qaar waxa weeyaan qayli baa lagu halaagay qaar waxaa lagu biyaa lagu qarqiyey qaarba si a lagu halaagay marka gaalka sidiisaba wuxuu ku baaqi noqon karaa muslimiin oo joogto la ilaalina inuu jiro laakiin ilaahay danka male hadday mu'miniinta kownka ka baxaan gaalada nolol ma lahaanaya wamaa kaana allahu mucadibahum wamaa kaana allahu ma kaana allahu ma kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wma kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun ilaahay subxaanahu wa tacaala intaad adinka joogtaan ama nebiga idinku dhex jiro ama ay mu'miniin joogaan cadaab caame kuma dhammaynaya hadday mu'miniinta ay ka baxaan kownka gaalada ma ka dambaynaya walidaalika gaaladii muslimiintii bay la dagaalamayaan in kownka ay ka baabi'iyaan waxay saas u samaynayaanna waxa weeyaan ma ogo inay ayaga mu'miniinta meesha ay ka bixiyaan inay halaag u tahay ma ogo marka waxa weeyaan adduunyada waa laysku imtixaanan yahay annagana xil baa na saaran ayagana waxa weeyaan cagsi bay u shaqaynayaan loolankaas ma dhammaanaya ilaa ilaahay lagala kulmo wabalownaahum biاlxasanaati wasayi'aati lacalahum yarjicuun intaas baan gaabinaynaa darsigiinii oo ku saabsanay adilada kowniga oo tusinaysa ilaahay waxdaaniyadiisa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين